وشيكدي لما قعبحدي لبا إسلا وايي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستا دونيدا كجوجتان صاحبada qaaliga ah waxaan idin rajeynayaa inaad xaalad fiican ku jirtaan kii dhibaataysan dhibta Allah ka saaro kii xanuunsan Allah caafimaad ha siiyo fadlan walaysa amran waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo like gareysaan inoo subscribe gareysaan YouTube-ka sidoo kalena ra'yigaaga noogu reebtaan dhanka faalooyinka aad iyo aad ay muhiim inoogu tahay inaad ra'yigaaga inala wadaagto qaybtani waa qaybtii saddexaad muddo yar dabadeed way dhashay Kaamil oo waxa ay ku curatay wiil abaheed Shaafici waxa uu arkay xaaladda ay inantiisu ku sugan tahay waxa uuna go'aansaday in uu xalliyo mushkiladan wadada ugu dhow ee uu ku xallin karana ay tahay in uu asturo gabadhiisa kuna asturo wiilkii ay ilmahan u dhashay waxa uuna goostay in uu aado Saadiq aabihi Shaafici ayaa u tagay Burhaan Qoodax oo ah Saadiq aabihi Burhaan oo maalinka safar ka soo galay gurigiisana fadhiya ayuu xaafadiisa beegsaday isaga oo afka abur ka sii deynaya waxa uu ku yiri wiilkaaga ayaa gabadhayda iga meher xaday waxayna u dhashay wiil waxaan idinka doonayaa inaad si sharaf leh gabadhaasi wiilkeeda igala wareegtaan Shaafici ayaa ugu jawaabay wiilkaygu gabadh ma qabo balse waan weydiinayaa arrinka haddii ay run noqoto dib ayaan idinkala soo hadli doonaa Shaafici ayaa gurigii Burhaan ka baxay isaga oo dhiikar qof uu ku soo booday weeg indhihii casaadeen xididadii dhafoorku soo baxeen oo waayo sabab uu sidaas u noqon waayay ma nin inta gabadhiisii la uureeyay oo wiil laga dhalay ninkii sidaas u galay aabihiisna leeyahay ma hubo markii aan hubinno kadib ayaanu idinkala soo hadli doonaa alla muxuu meel xun isdhigay gabadhiisii hoog baday odaygii Shaafici ahaa islaantii boosteeye ahaydna waxaad moodaa in loogu bishaareeyay cadaabtii aadan oo ahaa nin khiyaar ah bay u diideen waliba si fool xun iyagoo ku jeesjeesay sow kuma habboona musiibadan reerka ku habsatay oo in ay ku dhacdo sow kuma macaana odaygii Shaafici ahaa siduu u socday ayuu qolkiisa galay xilligii qadada ayaa la gaaray qadadii ayaa loo geeyay isaga oo sariirta gandoodsan casarkii ma soo bixin boosteeye ayaa u gashay mise cuntadii af ma uusan saarin halkaana ayuuba kooma camal wax u eg ku jira hadday rogrogtay ismaba nuuxinayaba degdeg ayaa waxaa loo wacay gargaarka degdega ah isbitaal ayaa loola cararay waxa uuna ku jiray isbitaalkii muddo bil ah markii laga soo saarayna waxaa ku dhuftay xanuunka la yiraahdo paralyska oo sariiryaal ayuu iska noqday reerkaba isaga u xamaali jiray waxay noqotay goobtay ku ganacsan jireen in boosteeyo tagto oo ay booskiisii gasho reerkii Saadiqna waa soo hadleen ayaga oo qirtay in ay wiilka dhaleen lacag ay gabadhooda ku aroosiyaanna hayn Saadiqna ku degdegay meher xadkeedii hase yeeshee ay awoodaan in ay qol u diyaariyaan si ay halkaasi labadoodu ugu midoobaan reerkii ayaga oo ku khasban ayay aqbaleen hadalka ka soo yeeray reer Burhaan Kaamil qurux gabagabadeedii waxay u hooyatay gurigii Saadiq halkaas oo ay ilmo badan uu kaga dhalay muddo 6 sanadood ah kadib waxa soo laabtay aadan waxa uuna bilaabay inuu hotel ka dhisto magaaladii markii uu jaangooyay hotelkiina waxa uu u baxshay Ciiltire hotelkaas oo loo dhisay qaab casri ah oo ka duwan qaababka hotelada loo dhisay magaalada sidoo kale waxa uu sameeyay kaalin shidaal oo aad u weyn una baxshay kaalinta shidaalka ee Ciiltire waxa kale oo magaaladii ka hirgashay beer weyn oo loo dalxiis tago una baxshay beerta Ciiltire waxa uuna noqday ninka ugu hantida badan ee magaalada Kaamil Boosteeya Shaafici Saadiq waxa iska noqdeen dad luqmatul cayshka la diriira waxayna iska aqbaleen qadartu waxa ay qaybta u siisay Shaafici oo sariiryaal ah ayaysan xasuustiisa ka bixin habeenkii uu aadan ku lahaa gabadhayda haddaadan $20,000 ku aroosayn ku siin maayo Boosteeye iyo abtideed oo isla socda ayaa maalin waxa ay booqasho u aadeen oday awowgood ahaa oo safar dibadda ah ka yimid kuna soo degay hotelka casriga ah ee Ciiltire
markii ay ka soo baxeen ayaa hiba waxay aragtay aadan oo fadhiya barxadda beerta yar ee hoteelku leeyahay say ku tiri boosteeyay waa ka aadan gabadha idinka soo dooni jiray hoteelkana isaga iska leh boosteeyo ayaa jaleecday markaasay quursatay maskaxdeedii iyada oo tiri berigaan gabadhayda u diiday lacag darteed ugu diiday bal maan iska siiyo mar walba hantidan alla waa siin lahaay qisadan reerkani waxay ku dhammaatay aadankii la quursaday ee gabadha loo diiday kaamishii quruxda badnayd ee mashaqaystaha oorida u noqotay boosteeyadii kibirka badnayd ee baaba'day shaaficigii diinta ku qaraabanayay ee baralayska noqday helayna abaalmarintiisii waxa aan sheekadan ka faa'iideynaa in xaaladda qofku hadda uu ku sugan yahay mustaqbalka dambe isbedeli karto qofna aan lagu xakumin xaaladda uu hadda ku sugan yahay waayo ma garan karno qadarta u dhiman ee u laaban qisadan waa laba isla waayey halka markii hore aadan isla waayay jacaylkiisii uu dadka ugu jeclaa hablaha ka doortay ee uu lacag darteed ku waayay markii uu hantiilo weyn noqdayna isla reerkii ay gabadhoodii ay la jeclaadeen aadan oo ay ka shalaayeen haddii ay horay u siin lahaayeen hase ahaatee ay isla waayeen iyaguna inay labadii jacaylee hore ay mideeyaan haddana xaaladuhu ay kala direen kalena fogeeyeen sidaas ay sheekadani kula baxday magaca laba isla waayey sheekadan waxaa qoray anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif isla aniga ayaa idin codeeyay